taariikhdaasi meel kastay soo gaartaba markii dambe waxay ku soo gaartay marxalad la garanaayo oo ah xurriyaddii Soomaaliya dawlad qaran oo casri ah inay yeelato markii ugu horeysay 1960kii oo ka koobnaatay sidii horeba loo sheegay laba gobol oo shantii qaybood oo Soomaaliya loo kala qaybiyo kamid ah walaalaha waqooyiga sida halkan taariikhda looga dhawaajiyay soo keenay midnimada iyo maxaan ku raaa walaaltinimada halkan u yimiday ee la iskula biiray ku samaysatay jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960kii jirtay runtii waxay mudan yihiin ayagana in taariikhda lagu xuso wanaagaas iyo niyadsamida Soomaalinimada ay berigii ay la yimaadeen waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyay maanta duruuftaasi waa isbedeshay walaalahaasina waa maqan yihiin oo waxbay tabanayaan magaca dawladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dawladnimada in lagu oo wax looga bixiyay ayay tabanayaan waxa ila haboon marka dadka Soomaaliyeed dawlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siino una markeenana aan u geyno oo aan u tagno aan midnimadii iyo dawladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dawladnimada loogu geystay inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno mustaqbalka soo socdana aan tala fiican isaga ogaano iyo sida la yeelayo baadigoobkeed in badan waan ka soo shaqaynay meelo badanna waa soo gaarsiinay laakiin hawshu waxay u baahan tahay waqti dheer iyo juhdi aad iyo aad u dheeray u baahan tahay annagu waxaan berigii aan joognay talada waxaan go'aan ku gaarnay mar walba waxa wanaagsan ee midnimada keeni kara inaan jirino haddiiba ay nagu adkaatana inaanan uga darin meesha ay markaas taagan tahay inaan looga darin oon la sii kala irdhoobin meesha ay taagan tahay lagu celceliyo ayaan annagu go'aan ku gaarnay waana ku soo guulaysanay oo alxamdulillah meel fiican ay soo gashay aan rabaa wax yar inaan gadaal u noqdo 2000 laga soo bilaabo ilaa 2012kii 12 sano oo dawlado isxigxiga oo ku meel gaar ah dalka ay soo mareen dawladahaasi caqabado waaweyn si badan ka hor yimid laakiin mid walba dawladnimada waxbay ku kordhisay mid walba dawladnimada meeshii ay joogtay meelay uga sii sikisay haddaanay wada sikin qaybo dawladnimada ka mid ah ayay horumar ka gaartay waxaysay 2012kii waa markii ugu horeysay ee dalkeena gudihiisa horta doorasho ay ka dhacdo safarka carta ka soo bilowday inbagaati ku xigay jowhar ku xigay baydhabo ku soo xigay markii dambe muqdisho caasimadda jamhuuriyadda yimiday ayaa 2012kii soo gabagaboobay markii ugu horeysay baarlamaanka Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto madaxweyne Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto dawlad aan ku meel gaar ahayn la dhiso ayay ahayd horumar iyo guul runtii aad iyo aad u weyn oo 12kii sano ee ka horeysay shaqadii la soo qabtay mira dhalkeeda ah ayay ahayd xoogagii siyaasadeed ee birigaa jiray waxay aad iyo aad ugu qanceen xigmadii ahayd shimbirkii duulay hawada maraa irsaaqadiisa dhulkay taala waa inuu soo degaa meel kasta dal dibad hadaad soo warwareegto meesha ugu dambayso waa Soomaaliya iyo talada in Soomaaliya la keeno marka 12kii wixii ka dambeeyay dawladdu ku meel gaarka waa ka baxday macaamilkeena caalamiga waa hagaagay dadka Soomaaliyeed iyo intii siyaasiyiinta birigaa joogtayna waxay u guntadeen dawladnimada safarka ka soo bilowday carta ee aan sheegayay markii dambe iskool bulisiya ku soo gabagaboobay halkaas inta laga wado Soomaaliya geeskaas in la gaarsiiyo waa lagu shaqeeyay maamulada maanta jira ayaa ku dhismay xukunkiya ku baahay laakiin safarku wali ma dhamaanin safarku Kismaayo iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo Dhuusamareeb iyo Garowe inuu ku ekaado maahan inuu ka sii tago oo waxa la rabaa degmada uu sii gaaro oo tuulada uu sii gaaro oo ceelka maxaan ku iraahdaa geereen uu biyaha kacaba uu sii gaaro oo tuulada xeebta ku taal kalluumaysatada ay degantaa ay sii gaarto talada ay wax ku yeeshaan oo ay ka taliyaan halkaas safarka marka wali waa socdaa ma dhamaanin safarkii
weli waa socdaa ma dhammaanin waxaanan rajaynaynaa tallaabta hadda la qaaday ee nidaamkan xisbiyada badan ah inuu yahay midkii sahlaya safarkaasi inuu sii durko u dhammaado oo meeshaas tago dalka qaarkiisna annaga soomaali haddaan nahay sideennaba ama xuduudda bannaankeeda aan ku noolaanno ama xuduudda gudaheeda aan ku noolaanno kalama fogin kalamana aadna uma kala aragti duwan tijaabooyin badanaa jiro somalilandaa case ah oo tijaabo ah oo doorashooyinka iyo nidaamka ay samaysay iyo baahinta xukunka sida ilaa heer degmo ay u gaarsiiyeen tajribo la qaadan karo oo nool oo taagan oo soomaali leedahay waa deganaanshiyaha iyo nabadda ka qaadashay leedahay puntland oo ayadana ku xigtaa sidoo kale ah iyadana deganaanshaha iyo nabadda iyo maxaanku idhahdaa horumarinta ka qaadashay waayo aragnimo ka qaadashay leedahay tajribooyinaan qabnaa oo soomaali